waxay ku beegan tahay 12 Rabiicul Awwal 1443 Hijriyada. waa maalin caynkee ah. maanta waa maalintii uu dhashay kii dadka ugu sharaf badnaa, kii dadka ugu khayr badnaa, udgoonihii, wanaagsanihii, raadsuubanihii, xabiibkii Nebi Maxamed calayhi salaatu wassalaam, aabbihii koonka, ninkii diintan na soo gaarsiiyey, ninkii annaga iyo xayawaanka na kala fadilay ee qiimaha noo yeelay. hal mar aan ku salino suubanaha calayhi salaatu wassalaam. allahumma salli wa sallim calayh. haddaba waxaa jira dad Soomaaliyeed oo diidan in la xuso Nabiga calayhi salaatu wassalaam, siday doonaan ha aadaan, magacay doonaan ha lahaadaan, meeshay doonaan ha joogaan, waxa ay doonaan se ha aaminsanaadaane. ma bannaan tahay in waxyaabaha diiniga ah ee sidan oo kale ay ka mid yihiin dhalashada nebiga la siyaasadeeyo ama lagu dhex daro waxyaabaha khilaafiga ah ee diimaha lagu kala tagsan yahay? haddaba su'aasha ayaan waxaan weydiiyey culimo badan, la tashiyo badanna waan geliyey. haddaba mowduuca ku saabsan dhalashada nebiga in lagu soo daro waxyaabaha la isku khilaafsan yahay, wadaad kasta isaga oo aan wax daliil haynin uu u qurxiyo carabigiisa kaliya intaa isaga taabacsan, uu ku qaldo kuna hagoogsado cimaamadihiisa, uuna ku buubuunsado arrimaha uu leeyahay. mawaadiicdaas fara badan ay isku khilaafeen wadaadada Soomaaliyeed ee badanaa diinta hunguriyeeya ay haatan waxa ay ku soo dareen cadamada iyo qiimaha iyo booska Ilaahay uu geeyey Nebi Maxamed calayhi salaatu wassalaam. Nebi Maxamed oo la siiyey afdalu khalqillaah, ama kii ugu khayrka badnaa makhluuqa Ilaahay abuuray. haddaba asaga ilaah ah, wixii ka soo hara kan ugu qiimaha badan ayaa laga dhigay. qofka darajada la gaarsiiyey ayay dhalashadiisa ama noloshiisa ama booska Ilaahay nolosha ka siiyey waxa ay ku dhex dareen waxyaabaha caadiga ah oo ay badanaa u isticmaalaan ikhtilaafaadkooda iyo waxyaabahooda diiniga ah. haddaba adiga maxaa kula gudboon marka aad tahay nin dhalinyaro wax bartay? soo dhawow, adiga way qofkaan doonayna la hadlo. qofka dhalinyarada ee wax bartay waxaa loo baahan yahay inaan soo ku dhicin waxyaabaha shubaha ah ee wadaad isku sheegyada haatan jira ay ku boocboocsadaan dadka ay carabiga ku gumaystaan oo ay diinta uga dhigaan. ma bannaan tahay Nebi Maxamed calayhi salaatu wassalaam in lagu soo dhex daro waxyaabaha kaftanka ah iyo hadallada iska caadiga warsuuqeedka ah ee fadhi ku dirirka looga sheekaysta? haddaba ma bannaana. Soomaalidu waayaan waxa ay banaysteen inay caayaan culimada. haddaba ma og tahay qofka caaya culimada inuu ka dhigan yahay inuu caayay Nebiga calayhi salaatu wassalaam? maxaa dhacay? soo dhawow, waxaa jira xadiis uu Nebiga calayhi salaatu wassalaam ku yiri: al-culamaa'u warithatul anbiyaa. culimadu waxa ay dhaxleen nebiyada, maxaa yeelay waxay hayaan shaqadii nebiyada oo ahayd alla in laga cabsado, dariiqiisana lagu caabudo. shiiqa ama wadaadka waxaa la siiyey darajada. haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay, Nebi Maxamed calayhi salaatu wassalaam qofka u bareera ama waxyaabaha iska caadiga fadhi ku dirirada ku soo qaata isaga ama saxaabadiisa, xukunkiisu muxuu noqonayaa? qofkaasi waa gaal. maxaa dhacay? waa ku caddahay daliilkiisu. waxa uu ku jeesjeesay Ilaahay, rasuulkiisa, aayaadkiisa iyo nebigiisa. waa tee aayadda ku dhahaysa? waatan fiirso: qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum. oo micnaheedu yahay, waxaad ku tiraahdaa Nebi Maxamedow, ma Ilaahay aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ayaad ku jeesjeesaysaan? cudurdaar ma lihidiin, waad gaalowdeen iimaankiina bacdigii. haddaba sababu nusuulka aayadan ama sababta ay ku soo degtay waxay ahayd nin munaafiq ah ayaa saxaabada la socday. nebiga iyo saxaabaduna waxa ay ka yimaadeen qaswo ama dagaalkii markii laga soo laabtay, waxaa nebiga iyo saxaabadii oo meel harsanaya, ninkan ayaa wax uu la kaftamayay bacdi saxaabada ka mid ah. nimankaa waxay u badnaayeen rag quraa ah oo maaragtay xaafidul qur'aaniin ah, isaga oo markaa ciidanka ku kala dhantaalaya ama aflagaado wax saasa u bareeraya. markii laakiin hadal ku afgobaadsanayay, maxaan ku yidhahdaa, kaftana inuu yahay, ayuu wuxuu ku yidhi: yaa macshar alquraa, nimankii qur'aanka akhrintiisa ku fiicnaayow, marka dagaalka la galana ma carari og tihiin, marka kalena ma sidaana cunnada ugu maaragtay firfircoon tihiin. hadalkii sayid cumar baa maqlay, nebiga ayuuna u sheegay. ninkii wuxuu yidhi: yaa cumar, maxaad nebiga iigu diraysaa? aniga waan iska kaftamaye. nebiga wejigiisa intuu isbedelay ayuu ku yidhi: qad kafarta, waad gaalowday buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam. haddaba iska ilaali Nebi Maxamed calayhi salaatu wassalaam in nin bidci ah
ama nin waxyaabo kale soo qaatay oo barnaamij ama mashaariic shiici ah fulinaya inuu ku nacsiyo suubanaha calayhi salaatu wasalaam, ahlu beytka iyo khulafaa ur-raashidiin. waad mahadsan tahay. diintu difaac bay u baahan tahay, dalka keliya difaac uma baahna ee diinta aqoonteena aan ku difaacno Soomaaliya. guuleysta kusoo dhawaada ummadda media. halkan aniga ayaa leh waan wada leenahay. si shargare muuqaalkan si uu dad badan u gaaro. guuleysta.